wuxuu igu yidhi niyahow xaasid baa tahay runtii xaasidna ma liibaano dhallinyaradii dalka joogtay baan nahay oo shaqo ma hayno waxaan ka shaqayna male dadkii dibadda joogo biilka noo soo diray waad nagu dirtay waxa lacag noo soo diraya ma laha xaasidna weligiis ma liibaanayo walaalaha sharafta ku soo dhawaada barnaamijka nolosha dhabtaa ku noolow nolosha dhabtaa oo kaga soo baxa magaalada London maanta waxaan joogaa Coventry xaasidnimadana runtii waa wax aad iyo aad u xun ninkan walaalkeena waxaa leeyahay waa kula tali anigu waxaan ku yidhi nin ragaad ilaahay kaa dhigay nin walaalka oo dibadda joogo waxbaa sugin ma jirinid jaamacad ma dhiganaysid iskuul ma dhiganaysid madarasa ma dhiganaysid nin walaalka oo kula qayrad biilkiisa sugaysa anigu waxaan ku yidhi waa kula tali waa ku ninka walaalka waa la rabaa inaad la talisid maanka kaa maqan waxaa la yidhi madaxa walaalka ku jira maadaama ani aan aqli kuu celiyey hadda inaad xaasid ugu tilmaantid runtii aad baan ugu xumahay waad garanaysaa xaasidnimada diinteena meelay geysa nabigeena suubana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi iyaakum alxasad fa ina alxasada yaakulu alxasanaat kama taakulu النار الحطب كما تاكل النار الحطب يعني حاسدنimada camalka wanaagsan ee cuntaa sidii naarta ay qoryaha u cunto xaasid miya anigu maanta waan rabtaa waxaan joogaa Coventry baskaasaan saaranahay hadda bareegan halkan ku qaadanay waxaan u socdaa yani arrimo dadkeena Afrika ku saabsan oo dugsiyaal ku saabsan oo dad odayaalba ay sugayeen arrintaasaan u soconaa inaan lacag u aroorno dadkaas masaakiinta oo iska rafaadsan oo dugsiyaal ah waxaan wax one of waaye wax one of hal mar qofka oo mataqaanaa wax loo qabanayo waaye laakiin adiga saaxib adoo dhalinyara waa soo taagan tahay waxaad rabtaa in mataqaanaa lagu dhiso in lagu guuriyo bil lagu soo diro mataqaanaa gacmo iskor saartay waxa aadan qabanin biri marka walaalka dhintana ama aniga laftayda ka dhig aan dhinta waxaad leedahay allah wax ma haysti caruurtii dhuuntay galay maxaan ka shaqeeyaa marka aniga ma kula talimis kulama talini aniga waxaan ku leeyahay ninka walaalkeen oo saas ilaahay waa kula talisa wanaagsan walaalkii oo fadhiga ka kac tan kale dadka dibadda jooga la dardaarmaya walaalkii oo fadlan waan ku bariyaa walaalka ha lu gooyni walaalka biilka ka jooji hadduu walaalka xoog leh oo dalka joogo ka jooji biilka asaga waa khalad inaa walaalka lu gooysid walaalka la tali walaalka shaqaysade haddaad wax u tiraysa biil yar u dir lacag yar u dir ha ku shaqaysto أفندي سوما مركا حتى دلك شقوين فربنا ناجرة شقوين عاد وبدنا ناجرة لكن خف كاس دلنيرة تقيسوا شقوين كبقوشة ولا الكي شقوين كوين داز ويسي وحال هلا محي هيدي وحال هلا شقوين متقانا اسكا العكتي سيدي كبعصيها أكله سيدي متقانا يعني بيرها لفلي أكله سيدي بدل لو بحيه oo dadka mataqaana qori inta la soo guro ama dhuxul mataqaana dadka laga beecbishiro inkastoo dhuxusha runtii mataqaana dadka ay nabad guurnayso oo dalka ay nabad laakiin dad baa ka shaqayso marka yani taajiriinta oo kale guryahooda tag walaalow muxuu shaqeeyaa dheh shaqo waa ku siinayaa yani mataqaana jikooyinka dhaq cuntada kari maqaayadaha ka shaqeey shaqooyin badan waa tubiyihiin laakiin problemku waxaa waaye ma rabtid waxaad rabtaa boqolka dollar ama labada boqolood oo lagu soo diray inaad ayarko iska qaadato aniga kula talle fadhiga shaqooyinka ku sheegayo waa shaqooyin rag badan oo Soomaaliyeed oo hadda dibadda jooga ay soo wada mareen Kenya markii la soo wada maray kulli shaqooyin noocaas laga wada shaqeyn jiray oo iska liid waxaad rabtaa adoo iska fadhiyo waxba lagu qabanin oo waxba aan qabanin farda qaajin in lagu biilo walaalaha sharafta loo soo maray dibadda jooga meel ka jooga Mareykan Australia Canada Yurub meel ka soo joogtay fadlan waa ku bariya walaalka u gargaar walaalka assalaamu calaykum